mucaaradka dowladda federaalka Soomaaliya oo maanta go'aan culus soo saaray kadib kulan balaaran oo isku wada yimaadeen magaalada Muqdisho. Magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa maanta martigelisay shirweyne balaaran oo isugu yimaadeen siyaasiyiin miisaan culus leh, kuwaas oo dhammaantood ah mucaaradka dowladda federaalka Soomaaliya kuna midaysan magaca golaha mustaqbalka Soomaaliya. Shirkan balaaran oo ka qabsoomay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin hore iyo kuwa haatan xilal ka haya dowladda federaalka, waxaana ka mid ahaa dadka ka soo qayb galay kulankan madaxweynihii hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed, ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre, madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni iyo sidoo kale xubno ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya. Ujeedada shirweynahan ayaa ahaa gorfaynta wax ka beddelka lagu sameeyay dastuurka. Intii uu shirka socday, xubnaha golaha mustaqbalka Soomaaliya waxay si qoto dheer uga doodeen sidii loo wajihi lahaa xal nabadeedna looga gaari lahaa muranka iyo khilaafka la xiriira wax ka beddelka dastuurka, kaas oo ay ku tilmaameen mid sharci darro ah. Sidoo kale inta uu kulanka socday, waxay golaha mucaaradka si adag uga doodeen, falanqeeyeen, uga hadleen caqabadaha iyo xiisadaha ka dhashay isbeddelka lagu sameeyey dastuurka, iyagoo iska xog wareystay tallaabooyinka la qaadi karo, ayayna ugu dambeyn si wada jir ah u cambaarayeen wax ka beddelka ay dowladda federaalka ku samaysay dastuurka. dhanka kale, golaha ayaa qaatay mowqifyo gaar ah, kuwaas oo ay ka mid ahayd in nidaam kasta oo la dhisayo uu noqdo mid sharciyad buuxda leh oo ay ku wada qanacsan yihiin dowlad goboleedyada iyo saamiilayda siyaasadda, iyagoona carabka ku adkeeyey in nidaam kasta oo la dhisayo loo maro hab sharci ah oo heshiis lagu wadayahay. bayaanka iyo go'aamada ay soo saareen golaha mustaqbalka ayaa qaarkood waxaa lagu yidhi sidan: shirweynuhu wuxuu cambaaraynayaa wax ka beddelka halka dhinac ee sharci darrada ah ee lagu sameeyey dastuurka, wuxuuna madaxda dowladda federaalka ugu baaqayaa inay ka waantoobaan tallaabooyinkaas ayna ogaadaan in lagula xisaabtami doono. waxaa sidoo kale ka mid ahaa go'aamada ay soo saareen in dastuurka ku-meelgaarka ee 2012 uu yahay dastuurka rasmiga ah ee dalka, islamarkaana aan wax ka beddel sharci darro ah lagu samayn karin, iyo in maadaama madaxweynaha dowladda federaalka uu diiday in heshiis laga gaaro doorashooyinka dalka muddaxileedka labada aqal ee baarlamaanka ku egyahay 14 Abriil, uu golaha mustaqbalka Soomaaliyeed 10 bisha Abriil fidin doono gogol lagu badbaadinayo dowladnimada Soomaaliya. iyo qodobo kale ayay soo saareen golaha mustaqbalka ee maanta shirka ku yeeshay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. ugu dambeyn, shirka maanta ka dhacay magaalada Muqdisho iskugu yimaadeen mucaaradka ku midaysan golaha ayay falanqeeyaasha iyo khubarada siyaasadda qabaan inuu ahaa mid diraya fariin siyaasadeed oo cad, oo ay ka mid tahay in mucaaradka muujiyeen mowqif midaysan, balse su-aasha waxay tahay ma jiri doontaa gogol wada hadal oo kale oo cusub oo la isugu soo dhowaanayo oo la isugu imaado, mise khilaafka siyaasadeed ayaa noqon doona mid sii xoogaysta.